haddaan kaga warbixiyo booqashada aan ku joogay maalmahan wadankan Mareykanka waan ku imid 18 bishii hore oo qaadatay muddo bil ah waxaan kulamo la yeeshay madax ka tirsan dowladda Mareykanka runtii xiriir fiican naga dhaxeeya dalka Mareykanka oo dhinacyo kala duwan naga caawiyo hadii noqon lahayd dhinaca ciidamada iyo dhinaca horumarinta marka wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda difaaca iyo hay'ado kala duwan wadanka markulamo la yeeshay Koongareeska Mareykanka kamid yihiin iskaashiga labada wadan ayaan aad uga wada hadalnay runtii waxaan kaloo kala hadlay arrimaha kamid tahay liiska wadanka Soomaaliya ama Soomaaliya lagu daray dalka laga xayiray inay u soo tifaan dadkooda Mareykanka ma ogaan karnaa cidda aad la kulantay iyo waxyaabaha sida gaarka ah uga wada hadasheen waa maasan tahay wasaaradda wasiirka xigeenka difaaca Mareykanka ee Afrika qaabilsan kulanay waxaan ka wada hadalnay arrimaha taageerada ciidamada dowladda Mareykanka ee Soomaaliya siiyaan runtii baan ku mahadceliyay taageerada inay siiyaan oo runtii muddo dheerna soo wadeen sidoo kale waxaan u sheegay inaan rabno in taageerada si loo jibaaro bari weyn aan u qabno in laga saacido naga taageero dhinaca ammaanka iyo sidoo kale dowladda Mareykanka inay si loo jibaarto taageerada xagga horumarinta oo la kulmay hay'adan USAID ama hay'adan horumarinta qaabilsan dowladda Mareykanka oo runtii xogta ku saarnay arrimaha dhalinyarada iyo shaqo abuur loo sameeyo runtii dalkan 175 oo dhalinyaro amniga waxa qayb ka qaadan kara in dhalinyarada farsamo gacan la baro shaqooyin badan loo abuuro dhalinyaro aad u fara badan oo wadanka ku soo laabanaysa kuwa sii joogan shaqo badan hayaan taas baan aad uga wada hadalnay sidoo kale USAID dalkan waa inaad qayb ka geysataan xaggan shaqo abuurka dhalinyarada shaqooyin badan loo abuuro sida gaarka ah arrimaha dhalinyarada cidda aad kala hadashay ma noo sheegi kartaa waxaan kulanay naagta madaxda ka Afrika USAID-ka oo aan ka wada hadalnay arrimaha shaqo abuurka dhalinyarada runtii waxayna ii sheegeen inay diyaar u yihiin inay waqtiga dhow ay dhalinyarada Soomaaliyeed ilaa shaqo ku dhow ay rajeynayaan inay shaqooyin joogto u abuuraan taasoo runtii noqotay arrin aad ugu farxay anigoo aan dhalinyarada golaha aqalka shir ku jira waxaan aad u danaynayaa in dhalinyarada Soomaaliyeed aan wixii aan qaban karo aan u qabto in dhalinyarada Soomaaliyeed ay shaqooyin runtii helaan wadanka waa ka warhaysaa dhinaca dowladda shaqooyin aad u fara badan oo maanta yaalla ama u diyaarsan ma jiraan laakiin waxay u baahan yihiin shaqo abuur aad u ballaaran oo dowladaha saaxiibka nahay gacan naga siinayaan waayahay waxaad noo sheegtay inaad la kulantay sidoo kale bulshada Soomaalida Mareykanka ku nool magaalooyinka aad soo martay iyo laftirkooda waxaad ka wada hadasheen iyo waxa ay kugu beeriyeen iyo waxaad ku beerisay intaba waa maasan tahay runtii gobollo badan aan maray oo wadankan Mareykanka kamid ah oo dadka Soomaalida ay degaan oo ay kamid tahay gobolka Minnesota iyo Seattle Washington aan maray Virginia sidoo kale Ohio runtii safaradaas waxaan ugu talagalay bal inaan ogaado ama ka war doono xaaladda dadka Soomaaliyeed ee wadanka ku nool oo bulshada aad u ballaaran ah siday u fikirayaan sidii wadanka uga warhayaan xaaladdiisa anigana waxaan warbixin ka siiyay xaaladda wadanka iyo meesha uu marayo hadii noqon lahayd dhinaca amniga dhaqaalaha siyaasadda iyo dib u eegista dastuurka oo runtii dadkan dibadda jooga waxay aad baahi weyn ugu qabaan dalkoodii inay ogaadaan meesha uu marayo runtii aad baan isku xog wareegsanay waxay aad u daneynayeen dadka Soomaaliyeed wadankan jooga in dowladda Soomaaliya gacan ka geysato in diiska dowladahan lagu daray Soomaaliya in laga saaro sababtoo ah familiyaad fara badan baa ay saameynaysaa arrintaas marka aniga aad baan u dhageystay waxaan u balan qaaday insha Allah markaan wadanka ku laabto inaan la wadaagi doono golayaasha dowladda iyo madaxda wadanka